الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن waxaan jeclaystay walaalahayga inaan la wadaago fiidiyogan yar oo ka turjumayo rokeeda fakaday China ka soo fakaday meel uu ku sugan yahay lama ogo sidee bay wax noqon doonaan horta Allahu a'lam Ilaahay baa naga og laakiin waxaan rabnaa dadaalkeena inaan fiirino insha Allah. Waxaan soo dhigay bartaan linki oo orbit innow oo satellite-ka ku xiran waxaa loo bixiyay magac la yiraahdo CZ-5B 2021 ayaa loo bixiyay waxa u bixisay dawladdan Mareykanka difaaca Mareykanka marka hoos u soo soco meeshan gaduudka waxa ka ogaanaysaa kilometer per hour-ka uu jarayo gantaalkaasi socdo 28.056 ayuu jarayaa haddii aad fiiriso waxaan gaduudka ah socdo waa gantaalkii waaye oo ku dul wareeganayo caalamka adduunka aan ku noolnahay aadka marka taariikhdana waa taasa oo 2021 bishii shanaad 6deedii 7 saac daqiiqadaha meeshaas ka socdaan marka waa kan asagoo ku dul wareegaya adduunka waxaa la leeyahay goortii uu bahalkan la launch gareeyay ama la kiciyay wuxuu ahay 29kii bishii aan soo dhaafin April waxayna leeyihiin wuxuu ku aadan yahay inuu soo dhaco May 9 meeshaan ku qoran tahay May 8keeda ama 9keeda ayuu ku aadan yahay inuu soo dhaco haddaba kaasa badweynta ayuu marayaa marba qaarad ayuu marayaa marka waxaan sugnaaba waa taariikh 9 ama 8 meesha uu ku soo dhici doono iyo sida uu soo dhici doono marka waxaan ka war sugaynaa quburada cabirada sameeyo ku cabiro waxyaabahan rocketska iyo waxyaabahan hawada sare u duuliyaan iyo waxay sheegeen 90% adduunka inuu yahay biyo laga yaabaa inuu badweynta ama biyahaasi uu ku dhaco insha Allah ta'ala marka haddii aad rabto waxaad kala socon kartaa meesha uu marayo waqti walbo linkiga aan soo dhigay Facebook-gayga linkigan ayaad kala socon kartaa hoos ayaad u soconaysaa meeshaas ayaad ka ogaanaysaa meesha uu marayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.